golaha iskaashiga maamul goboleedyada dalka ayaa waxay war ka soo saareen weerarkii ay dowladdu ku qaaday guriga u deganaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah dowladda Soomaaliya waxaana warbixintan ay soo saareen dowlad goboleedyada oo ay ku mideysan yihiin dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle, galmudug iyo Puntland ay sheegeen in ay tahay mid aad uga xun yihiin weerar lagu bartilmaameedsanayo siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya waxaana warmurtiyeedkan ka soo baxay iskaashiga dowlad goboleedyada lagu yiri ugu horeyntii golaha iskaashiga dowlad goboleedyadu waxa uu tacsi u dirayaa eelkii iyo qaraabadii dadkii ku dhintay howlgalkii bishan 18 ka dhacay guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame intii ku dhimatayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u naxariisto sidoo kale waxaan Ilaahay uga baryaynaa in intii ku dhaawacantay caafimaad uu degdeg siiyo labadii bari ee la soo dhaafay goluhu wuxuu si dhow isha ugu hayay xiisadda siyaasadeed iyo waliba amni ee ka soo cusboonaatay magaalada madaxda dalka ee Muqdisho kuwaas oo haddii aan xal siyaasadeed oo degdeg laga gaadhin saameyn xooggan ku yeelan karta deganaanshaha iyo waliba xasiloonida dalka ayaa lagu yiri warmurtiyeedkan ka soo baxay dowlad goboleedyada waxaan soo dhaweynaynaa sii deyntii shuruud la'aanta lahayd ee la sii daayay siyaasiga Cabdishakuur Warsame kadibna dadaalo ay u galeen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada iyo wasiiro xildhibaano iyo dubaab odayaal iyo xubno kale oo ka tirsan bulshada rayidka waxaana ku baaqaynaa in arrimaha waliba dhimana lagu dhameeyo si degdeg ah oo waafaqsan sharciga lana dhowro xasiloonida guud iyo amniga iyo waliba xuquuqda dastuuriga ayaa lagu yiri warmurtiyeedkan ka soo baxay dowlad goboleedyada waxaan ka digaynaa in dambi laga dhigo khilaafyada siyaasadeed mar walbana jiri kara lana bartilmaameedsado siyaasiyiinta lagu tuhmayo inay mucaarad ku yihiin dowladda Soomaaliya maadaama sharcigu uu ogol yahay in mucaarad iyo muxaafid ay ku cabiraan fikradooda siyaasadeed ee ku aadan hadba xaaladda siyaasadeed ee taagan iyo waliba si waafaqsan dastuuriga kaas oo ogolaanaya xorriyadda kulanka iyo waliba hadalka ayaa lagu yiri waxaan soo jeedinaynaa in laga fog jignaado dariiqada loo mareeyo xalinta kala duwanaanshaha afkaarta siyaasadeed ee kala gadisan iyo waliba awoodsiga ciidan iyadoona wali wadanku uu ku jiro marxalad adag oo nuqul oo lagama maarmaan ay dhigayso in wax walba lagu gaaro si dib u heshiisiineed iyadoo loo marayo isla markaasina la tixgelinayo deganaanshaha dalka sidii hore la isugu raacayna aan ciidamada nabad sugidda iyo waliba xoogga dalka midkoodna loo isticmaali karin arrimaha madaniga ah ee booliisku uu leeyahay waxaan soo jeedinaynaa in laga fiijignaado wixii kala fogaansho keeni kara iyo waliba amni darro ayaa lagu yiri warmurtiyeedkan ka soo baxay maamul goboleedyada dalka